ciidamada bilayska ee gobolka Saaxil ayaa howlgal ballaaran ay ka fuliyeen gudaha magaalada Berbera xarunta gobolka Saaxil waxay ku soo qabqabtay qamri aad u tiro badan iyo sidoo kale eedeysanayaashii sitay qamrigaasi. Howlgalkan ayaa muddooyinkii u dambeeyayba waxay ka wadeen gudaha magaalada Berbera ciidamada bilayska ee gobolka Saaxil waxaana halkaasi warbixin laga siiyay taliyaha ciidanka bilayska ee gobolka Saaxil Gaashaanle Muuse Xasan Kaahin waxaanu ka warramay in muddooyinkii u dambeeyayba howlgal ay ku jireen ciidamada bilayska kala duwan ee gobolka Saaxil siday u dabargooyaan dadka caadaystay inay soo galiyeen magaalada maandooriyaha loo yaqaan qamriga iyo xashiishada iyo wax kasta ka soo horjeeda sharciga. waxa halkan yaala maanta horteena yaala 197 litir caagadood oo khamri ah oo lagu qabtay shalayto magaalada Berbera howlgal ay ciidanka booliisku sameeyeen gaar ahaan saldhigga wada jiriya xuuraanku waxa lagu soo qabtay maandooriyahan horteena yaala oo ah khamriga waxa lagu keenay gaari shaambooya ayaa lagu soo galiyay magaalada gaariga shaambooya dhigagiisa taangiyada biyaha oo kuwa horteena yaala ayaa lagu soo qariyay khamrigaas oo lagu soo guray ka bacdi gaari kale lagu wareejiyay gaarigii kale lagu soo wareejiyay way ku soo qabteen boolisku labadii gaari iyo khamrigii iyo labadii eedeysanay watay gacantaan ku haynaa waxaan mahadnaq ballaaran u jeedinaynaa oo u mahadnaqaynaa Ilaahay mahadle dadweynaha nagala qayb qaatay ee hawshaana la fududeeyay soo qabashadooda iyo ciidanka ku guuleystay labadaba waxaan leenahay dhalinyarteen iyo daayirteed waxaan lagu baaweynayaa waxa weeyaan bulshada reer Berbera ama gobolka Saaxil waxaan fariin halkan uga dirayaa uga faa'iideysanayaa saxaafadda inay nagala shaqeeyaan oo ay nagala hawl galaan oo ay soo sheegaan oo ay dadka dhalinyarta ka wacyi geliyaan ciidankana gacan ka siiyaan hadii la soo qabashada sida imika kale waxaan mahadnaq ballaaran u jeedinayaa ciidankii ka hawl galay hawsha oo saldhigga wada jiriya ciidanka xuuraanka iyo ciidanka degmada Berberaba oo gacanta ku soo dhigay khamriga tiradiisu tahay intaa maalinba nimanka bahalka iibiya maalinba kaartay keenayaan kaartay kastoo keenaanba waxaanu oo ciidankani u tababaran yahay inuu ka horeeyo oo meel kastoo ku qariyaan ka soo saaro hadii la yiraahdo cid naga qarin kartaana ma jirto day taangi ku soo guraan iyo haday foolay bagaala soo saaraanba ciidankani uu tababaran yahay waanu ka hawlgeliya waxaan idin sheegaynaa inaanaydan la dhuuman karin cidda ka ganacsata khamrigaas iyo maandooriyahaas inaydan la dhuuman karin booliiskuna uu u tababaray sidoo u heli lahaa meel kasta oo soo gelisaan. Maxamed Cali Luux, Gobonimo TV, Berbera.